السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. soo dhawaada asxaabta ku xiran channelkeena Mawhiba Production. qofka idin la hadlay waa anigu Cabdisalaana. muuqaalkan maanta wuxuu ku saabsan yahay sida dooreba u soo aragteen sawirkan aad arkaysaan oo ah Asad Xaajiyo. maanta Asad Xaajiyo ayaa kawaanka noo saaran. fadlan haddii ay tahay markii ugu horreysay aad noo soo booqato waxaan ka codsanaynaa inaad subscribe noo saarto, video like noo saarto. haddaad naga daawanayso Facebook iyo TikTok inaad follow noo saarto aad baad u mahadsan tahay. aan hore u galno muuqaalkan maanta. okay marka waxaan soo furanaa galeriga mobilka. markaas oo soo galno sawirkan habeenayna waa ka sawirka ayaan ku dhufanaynaa. waxaan ku soo dhufanaynaa Lightroom waa application aan ku habeenayna sawirkeena. okay marka Lightroom saa ugu dhufan xagga aan ka soo bixinaa waxaan soo galeynaa Lightroom. okay Lightroom markaas saa ugu dhufano xagga all photos ay ku qoran tahay ayaa ku soo dhufanaynaa. kadib waka sawirkan soo qaadanay geeska xiga waan ku dhufanaynaa. okay hagaag marka xaggaas uu keenaya waxaan sameeynaa lightka xagga lightka ayaan ka habeynaa contrast xoog dib baa u celinayna ilaa ama xoog ku dareena ilaa 9 baa ku dareena. highlightka ilaa waxaan geenaynaa adiga ilaa 27. shadow waxaan geenaynaa ilaa 51. white kaasna sidoo kale 100% dib baa u celinayna. black waxaan geenaynaa ilaa 35. okay xagga hadaan aga soo gudubno qaybtan ayaa u gudbeynaa oo colorka kadib xaggaas saraan ku soo dhufanaynaa. okay marka xagga waxaan sameeynaa huega xoogaan ku dareynaa ilaa -14. saturation kana waxaan leenahay ilaa -10. luminance kana waxaan leenahay ilaa -16. okay meesha xigta hadaan u gudubno ayadana waxaan sameeynaa huega dib baan u celinaynaa ilaa waxaan leenahay -12. saturation ka sidoo kale waxaan leenahay -8. luminance kana waxaan ku dareynaa ilaa plus waxaan leenahay ilaa +16. okay meesha xaga jaalaha hadaan gudubna asna waxaan sameeynaa saturation dib baan u celinaynaa 100%. huegana sidoo kale luminance kana xoog ku dareynaa ilaa waxaan leenahay +14. meesha cagaarka hadaan u gudubno saturation waxaan leenahay ilaa 63. huegana waxaan leenahay +100%. hueg waan dhamaystirnaa 100% baan ka dhiganaa. luminance kana waxaan leenahay -21. meeshaan xigta colorka xiga hadaan u gudubno waxaan sameeynaa saturation dib baan u celinaynaa baa leenahay 100%. huegana waxaan leenahay +100%. colorka xiga bluega asna waxaan sameynaynaa bluega waxaan sameynaynaa xoogaa plus baan leenahay ilaa waxaan geenaynaa ilaa 39. luminance kana waxaan sameeynaa baa leenahay ilaa 20. okay colorka xiga asna waxaan sameeynaa baa leenahay. colorka si xigana asna waxaan leenahay intiisa u deena kan waxba kama taabanayno xaggaas ku dhufanaynaa. kadib waxaan u gudbeynaa xaggan 3 dhibic xagga shadow waxaan sameynaynaa falaarta ayaa hoos soo celinaynaa ilaa waxaan geenaynaa adiga saturation waxa ka dhiganaa 60. huegana waxa ka dhiganaa 35 sidaas shaashada ka arki kartaan. okay marka xaggaasaan imaanaynaa kana ya xoogaa dib u celinaynaa waxaan leenahay ilaa 26. okay qaybtan saddexaad highlightka ayadana sidoo kale xaggana taabanna waxaan keenaynaa ilaa 248 ilaa 265. huega saturation kana waxaan leenahay +60 ilaa 56. okay xaggan waa meeshii hore xagga ayada waxba agama baahan dib baa u sii celinayna ilaa waxaan geenaynaa 69. xagga luminance kana waxba kama taabanan inteeda ku celinaynaa. okay hadda inta aga soo gudubno xaggan waxaan sameeynaa xoogaha oo sheet colorka ayaan naga qaldanay bartiisa hore ku celinaynaa ilaa 55. okay xagga inaan saturation xoogaa ku darno ilaa waxaan geenaynaa 67. okay marka xagga joogno waxaan leenahay dhan baa leenahay waan ka soo baxaynaa. kadib waxaan u soo gudbeynaa qaybtan
waxaan sameynaa texture-ka xoogaan ku dareynaa ilaa waxaan leenahay plus 8 ilaa 18 clarity-ga sidoo kale ilaa 16 vignette-kaasna waxaan sameynaa dib baa u celinaa waxaan leenahay -40 iyo -37 midpoint-gana asna sidoo kale -40 waxaan leenahay 38 faadirka xoogaa fureynaa ilaa 65 okay kadib xaggaasaan kusoo dhufaneynaa detailiga sharpinka haddaan u nimaan asaga waxaan sameynaa ilaa waxaan ku dareynaa 24 noise reduction-kan asna waxaan sameynaynaa ilaa 40 iyo 40 ugu badan ilaa waxaan geenaynaa 30 ilaa 28 color noise reduction-kan waxaan sameynaynaa ilaa waxaan geenaynaa adiga 32 okay marka xaggaa joogno waxaan u imaanaynaa meeshan ayaa imaanaynaa oo ku dhufaneynaa kadib waxaan sameynaynaa colorka ay ku qoran tahay lambarkiisa uu ku qoran yahay iraahdee eber 4 okay waan ku dhufaneynaa kadib waxaan sameynaynaa xaggan hoose ayaa xoogaa plus leenahay ilaa 8 okay xagga waan ku dhufaneynaa hadda waad aragtaan sawirkeenan siduu markii hore haddaan fiirino markii hore sidan ayuu ahaa haddana waxaa u bedelnay sidan runtii farqi weyn baa u dhexeeya waad ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan haddaa ilaa xagga nala soo gaarto waxaan ka codsanaa inaad subscribe noo saarto video like noo saarto haddaad naga daawanayso Facebook TikTok inaad follow noo saarto aad baad u mahadsantahay waa anigoo Cabdisalaana tan inta ku kulmi doono muuqaalka xiga waxaan idinkaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo